kulanti wacan daawadayaasha qiimaha badan meel walba dunida ku joogtaan kusoo dhawaada saddex qodob cadeen waa inay diilshaan noo shahay saddexdaas qodob ayaan halkan ku falanqayn doonaa kanaal saaxiib nagu cusub hadda oo kanaalka markii ugu horeyso booqanayso iyo subscribe saaro gambaleelka ku dhafsi si wararka degdeg ugu soo dhacaan share dhe saaxiibtada la wadaag wixii faala ama comment ah hoos inoo gureb oo su'aal ka qabtid su'aalaha waan kaaga soo jawaabina insha Allah warbixinteena deegaysha like inoo sar waa maasantiin aan ku bilownay marka hore saddexda qodob ee cadeynaya inay diilshaha noo shahay sidoo kale tan intaan taas falanqayn ka hor waxaan marka hore idin sheegaynaa maxaan cuskan jirnay cadeen ahaan in dilshaha in dhimatay saddex qodob ayaan cuskan jirnay saddexdaas qodob ayaan u haysanay saddexdaas qodob awgeedii waxaan u haysanay inay dilshaha dhimatay saddexdaas qodob maxay yihiin kow afka ayaana looga sheegay inay dilshaha dhimatay oo afka ayaa mar walbana looga sheegi jiray intaan taxanaa daawanaynay oo dhan dilshaha way dhimatay iyo qisooyinkeedii hore ayaa afkana looga sheegi jiray midaas ayaa nagu kaliftay inaan aamino inay dilshaha dhimatay oo aysan dib dambe usoo bixinin midda labaad waxay tahay xabad inay ku dhacdo ayaan aragnay iyo qabrigeedii oon aragnay mar muuqaalo flashback ama xusuus ayaa waxaana lagu tusay dilshaah iyo hasar shaadholog oo wada ordayaan maxamed aslan bayna uu bursanayo hasar shaadhologna xabad ayaa lagu dhufanaa uu dhaawacma uu badbaadaa laakiin ma dhimanayo halka dilshaahna way dhimato naldhaa iyadana xabad ayaa ku dhacayso muuqaalkaas ayaan sidoo kale cuskanay una malaynay inay dilshaah dhimatay waayo hasar shaadholog ayaa soo xasuusanayo oo misana markii xabadda dilshaha ku dhacaysay isaga ayaa ka sheekeynaya siday u wada ordayin maxamed aslan bayna uu bursanayay haddaba waa qodobka labaad oon cadeen ahaan u haysanay inay dilshaha dhimatay misana qabrigeedii ayaanba aragnay oo qabriga dilshaha iyo maxamed aslan bay way isku ag yaalaan marka sidaas awgeed waxaan u malaynayna inay dilshaha dhimatay qodobka saddexaad ee cadeynta u aan u haysanay inay dilshaha dhimatay wuxuu ahaa gabadha taxanaha qarash garaynaysa ee baano loogu magacaabo waraysigii laga qaaday bishii Janaayo ee sanadkan 2020 bilowgiisii ama 3 bil ka hor waraysi 4 bil ka hor waraysi laga qaaday waxay baano sheegtay inay dilshaah dhimatay ayay sheegtay markaasi oo aysan soo bixinin ayay sheegtay season 2 ayaana markaasi lagu jiray marka saddexdaas qodob cadeen ahaan waxaan u haysanay inay dilshaah dhimatay oo dib dambe u soo bixinin daawadayaal badanna sidaas ayay aamineen ayagoo markii hore aamineen sheekooyinkiina loogu sheekiray dilshaah way dhimatay ah qabrigeedii oo la arkay xabad inay ku dhacday oo la arkay gabadha qarsh garaynaysa oo afka ka sheegtay inay dilshaah dhimatay inay soo bixinin markii season 2 lagu guda jiray haddaba arrimahaas oo dhan arrimo ka daran ayaan haynaa inta aan soo sheegno waxay ahayd cadeymihii cadeynay inay dilshaah dhimatay cadeymaha hadeer aan soo wadno kuwii hadeer aan idiin sheegno way ka darnaan doonaan kuwii hadeer aan idiin sheegnana qashinka ayaa lagu duuri doonaa qodobka koowaad ee cadeynta u ah inay dilshaah nooshaha muxuu yahay ilaa iyo hadda ayadoo dhimanaysa maynan arag dhagaha bis ayaan ka maqalnay sidaa awgeed adiga haddii lagu sheego qof hebel wuu dhintay haddii lagu dhaha iyo haddaad indhahaada ku aragtid laba cadeyn ayay kala tahay oo kala culus waayo qof hebel wuu dhintay haddii lagu dhaha waxaa macquul ah qofkaas lagu sheeg inuusan dhimanin uu qof kale u eg ama qof kale lagu qalday uu dhintay qofkii aad u malaynaysa inuu dhintay inuu nool yahay laakiin haddaad indhahaada ku aragtid ayadoo la duugay oo qabrigii la gelinayna aad aragtid markaas waxay ku cadaanaysa inuu qofkaasi dhintay marka ilaa ay hadda anaga dhagaha unban ka maqalnay inay dilshaah dhimatay laakiin maynan arag muuqaal xusuus ah oo flashback ahna dib nalooma tusin dilshaah markay dhimanaysay qaabkii ku dhimatay markii la duugay qabriga la gelinay waxaasoo dhan maynan arag marka taasi waxay cadeen u tahay in dilshaah dhimashadeedii uu shaki ku jiro qodobka labaad ee dilshaah dhimashadeeda shakiga gelinaya wuxuu yahay cadowga saddexaad qofka uu yahay ilma kala caddo waxaan ognahay cadow saddexaad inuu jiro oo dhambaale soo diray oo miiraan caaminay casiis aslan bayna cadow ku ah cadowga saddexaad waa kuma qofka uu yahay lama oga qof walba ayuu noqon karaa tusaale wuxuu noqon karaa suldaana ayaa noqon karto wuxuu noqon karaa cadowga saddexaad rayaan aabaheeda ayuu noqon karaa cadowga saddexaad wuxuu noqon karaa dilshaah ayuu noqon karaa dilshaah ee xabad inay ku dhacday oo ay badbaadi muddo ay suuxsaneyd ama xusuusta ay ka luntay misana ay soo caafimaatay gadaal dambe ay kasoo baxday cadowga saddexaadna ay iyada tahay oo fariimahan soo diray si casiisa kaga argoosato soo lagama yaabo waa macquul dilshaah gabar u eg inay duugeen reer aslan bay iyo reer shaadholog oo ay u maleeyaan inay dhimatay
laakiin dilshaha xabadii ay ka badbaadi dhaawacantay meel ku qarsooneed ama xirxirneed meel lagu xiro oo nasuux xitaa xiray waa macquul. waxaa macquul ah inay iyada xitaa xusuusta ay ka luntay oo dad dadow iska haysteen muddo, laakiin intaasoo sano markay soo caafimaadday xusuustii usoo laabatay kadibna oo ama koomadii ay kasoo kacday ama kooma inay ku jirto xitaa waa macquul. oo intay koomadii kasoo kacday soo baxday, soo abaabushatay oo reer kale samaysatay, awood yeelatay, lacag yeelatay, haddana usoo jeesatay inay reer Islaambey ka arsato, gaar ahaan Casiis Islaambey oo iyada silcis inay ka arsato waa macquul, way noqon kartaa. waxaa macquul dilshaha inay nooleen cadowga saddexaad qof kale noqdo. marka qodobka labaad ee cadeynaya ama shaki gelinaya inay dilshaha nooshaha wuxuu yahay cadowga saddexaad qofka uu yahay ilaa hadda ma kala cado. maalintii la kala ogaado cadowga saddexaad qofka uu yahay, markaasi dilshaha way kala cadaanaysaa inay nooshahay ama inay dhimatay. qodobka saddexaad ee aan cuskanay maxsana cadeynta u ah inay dilshaha nooshahay waxaa waaye Hazar ayaa soo xasuusanaya in dilshaha nooleed ka hor inta uusan sooxin. habeenadii ka mid ah Hazar isagoo sariirtiisa jiifa xalqadihii aan soo dhaafnay, riyo ayuu ku riyoonaa, laakiin waa xusuus uu xasuusanaya habeenkaasi siday wax u dhaceen. wuxuu xasuusanaa isaga inay xabad ku dhacday markay dhulku ka dhacin, kadibna dilshaha ay nooleed aysan nafta ka bixin, ina la hadlayso ay lahayd Hazar ayay lahayd. isagana wuxuu arkay lugaha aabihiis nasuuh ayuu arkay, hurdada ayuu kasoo boodayay, wuu qaylinaya, aabihiis ayuu qolka ugu soo galay, wuxuuna leeyahay aabbo dilshaha way nooleed ma aysan dhimanin ayuu leeyahay. marka Hazar xusuustiisii qayb ka mid ah way maqan tahay, iyadana waa daliil kale. sababtoo Hazar hadduu waxoo dhan si fiican u xasuusto waxay noo kala cadaanaysa inay dilshaha dhimatay iyo in kale. marka xusuusta Hazar oo soo laabata waxay ku xiran tahay dilshaha cadeynteeda oo sheegaysa inay dhimatay in kale. marka taasna waan cuskanaynaa oo Hazar uu soo xusuusta wuxuu dhahay dilshaha way nooleed ayuu dhahay, aabba ma aysan dhimanin ayuu dhahay. xusuusta Hazar oo ka maqan kow, cadowga saddexaad qofka uu yahay lama kala yaqaano. labo, qodobka saddexaad wuxuu yahay afka ayaana loogu sheegay anaga. saddexdaas qodob ayaan cuskanay inay dilshaha nooshahay oo miiraan hooyadiisii ee ah, sidoo kaleetana Hazar Shadholog jacaylkiisii hore ah. haddaba Banu hadalkeedii maxaan ku jawaabaynaa? Banu waa gabadha qarash gareynaysa taxanaha, sidoo kaleetana waxay sheegtay inay dilshaha dhimatay oo aysan soo noqonaynin. marka hadalkaasi maxaan ku fasirnaa? sidees uga jawaabnaa? ilaan gabadhii qarash gareynaysa taxanaha ayaa sidaas dhahday. laba qodob ayaan uga jawaabaynaa hadalka Banu. qodobka koowaad, marka koowaad waxaa la weydiiyey dilshaha ma soo baxay ayaa la weydiiyey, dilshaha ma dhimatay lama weydiinin. daawadayaashii su-aalahaas weydiiyeen bishii Janaayo aan kasoo gudubna waxay dhaheen Banu dilshaha miyay soo baxaysaa season 2? markaasna su-aashii markii la weydiinayay season 2 ayaa lagu guda jiray ama herjaayi qaybtii labaad ayaa lagu dhex jiray. marka waxaa la weydiiyey dilshaha miyay soo baxaysaa ayaa la dhahay, kadibna iyada waxay dhahday maya ma soo baxaysa ayay dhahday. marka jawaabta ay ka bixaysa Banu waxay ahayd maya dilshaha ma soo baxayso ayay dhahday. taasi waxayna markay ka jawaabaysa dhahday season 2 ayay dhahday, ma aysan dhihin dilshaha taxanaha inta uu socdo dhan ma soo bixaysa, ma aysan dhihin season 3 ma soo bixi doonta, ma aysan dhihin. markii jawaabta ka jawaabaysay season 2 ayaa lagu guda jiray, markaasi waxay dhahday ma soo bixaysa ayay dhahday. hadalkeedana waxaan u fasirnay season 2 inta lagu guda jiro dilshaha ma soo bixaysa inay dhahdo ayaan u fasirnay. season 2 na hadeer waa laga soo gudbay, jawaabtii Banuna waa laga soo gudbay. season 3 lama weydin dilshaha inay soo bixaysa in kare, iyadana ma aysan sheegin oo dilshaha way soo baxay maysan dhihin oo taxanaha sheekadiis ayay qaranaysaa. marka qodobka koowaad ee Banu su-aashii la weydiiyey horta sidaasaan u kala saarnay. dad badan ayaa mugdi kaga jiray oo u maleeyeen Banu inay kaga jawaabtay toos ahaan in ay dilshaha abad soo bixi doonin, dad baa u fahmeen. laakiin ha ogaadaan Banu jawaabta ay ka bixayso waxay ahayd season 2 kaliya ee season 3 kama aysan jawaabin. ma aysan dhihin season 2 iyo season 3 ba ma soo bixi doonto dilshaha, ma aysan dhihin. kaliya waxay dhahday dilshaha ma soo bixayso. jawaabtaas markay ka bixinaysana season 2 ayaa lagu guda jiray, waxayna ka waday season 2 inta uu socdo taxanaha dilshaha ma soo bixayso ayay dhahday. marka season 2 hadeer waa laga soo gudbay, season 3 iyo waji cusub ayuu taxanaha yeelanayaa, dilshahana way soo bixaysaa. qodobka labaad ee Banu jawaabteeda aan dhinac u marnayna waxay tahay, marka labaad hadalka Banu 100% sax ma noqon karo, waa qarash gareeye iyada. director ama agaasimo ayaa jira, gabadha sheekada qorta ayaa joogta, sheekada dad kale oo sii faafiyaan oo sii tafatiraan ayaa jiraan.
baano shaqo kuma leh waxaasoo dhan keliya iyada mushaarka ayay bixisaa shaqaalahana mushaarkooda ayay siisaa xafiiskeeda iyo howlaheeda kale ayay iska wadataa marmar ayayna dul martaa oo goobta hirjaayo ku doobayaan ee dul tagtaa xaalkooda korana way la socotaa laakiin boqolkiiba boqol sheekada siday wax u dhacayaan iyada ma xifdisano mana hayn karto agaasimo ayaa jira directorka filimka ayaa ka jawaabi karo dilshaha inaysan abid soo bixoonin iyo in kale marka tusaale ahaan baanu hadda ka hor su-aalihii bishii janaay la weydiiyey su-aal ka mid ah ayay qaladay ilaa haddana jawaabteeda lagama hayo waxaa la dhahay haaruun waa kuma qofka uu yahay goormay ogaanina ayaa la dhahay bishii janaayo ayaa la weydiiyey xilligaasna taxanaa xalqadii 28 meelaas inuu marayay ayaan u malaynaya qiyaas ahaan marka baano waxay tiri haaruun qofka uu yahay cidda dhashay meesha uu kasoo jeedo wax walba waxaad ku ogaan doontaan xalqada 30aad ayaad ku ogaan doontaan ayay dhahday xilligaasna xalqada 28 ilaa xalqada 29aad meelaas ayaa lagu jiray xalqada 30aad ayaana la sugayay toddobaadkii xigay ayaa xalqada 30aad la sugayay haddaba xalqadii 30aad markii la gaaray haaruun qofka uu yahay lama ogaanin ilaa ay hadda oo xalqada 38aad uu taxanaan ku dhamaaday oo xasiisan tiri la sigaloy haaruun qofka uu yahay lama ogo cidda dhashay lama ogo meel uu kasoo jeedan lama ogo adiga hadda codkan dhageysanay xitaa ma sheegi kartid haaruun qofka uu yahay ama meesha uu kasoo jeedo iyo waji ahaan asal ahaan waxa uu yahay marka baano waxay inoo sheegtay xalqadii 30aad in haaruun lagu ogaan doono qofka uu yahay ilaa haddana lama ogaanin marka taasi waxay cadeynaysaa baano hadalkeeda boqolkiiba boqol inuusan sax noqon karin waa gabar qarash garaynayso sheekada waa la bedeli karaa sheekada waxbaa laga nusqaamin karaa waxbaa laga jari karaa waxbaa lagu siyaadin karaa iyada hadalka ee dhahday mar walba su-aalaha ay ka jawaabayso waxay dhahdaa aniga boqolkiiba boqol ma hubo waxaan jeclaan lahaa qoraaga sheekada ama directorka inaad su-aalahan weydiisaan ayay dhahdaa su-aalaha waxaa la weydiiyaa iyadoo dhibsanaysa ayayna ka jawaabtaa marka gabadha ayaa la kalifin jawaabaha ay ka bixisay boqolkiiba boqol sax ma ahan ayada sheekada shaqo kuma lahan waa kaliya sheekada way qarash garaynaysaa mushaar ayayna bixinaysaa laakiin dadka howsha maalin walba ku dhex jiro misana howsha sheekooyinka kala qoray kala agaasimaya waxyaabaha duubay kuwaas ayay ogaan karaan marka waxaan leenahay baanu hadalkeeda boqolkiiba boqol sax ma noqon karaan midaas koowaad midda labaadna jawaabta dilshaha ay ka jawaabtay waxay ku xayndaabneed ama ku ekeed season 2 ayay ku ekeed waxayna dhahday season 2 dilshaha ma soo bixis ayay dhahday gabi ahaanba taxna inta la duubay dilshaha ma soo bixaysa ma aysan dhihin midaas inta baano markaan kasoo gudubno waxaan saddexdaas qodob kale ayaan cuskanaynaa in dilshaah inay nooshahay oo shakigeeda in jiro saddexda qodob waxay kala yihiin aan idin xasuusino cadowga saddexaad ilaa uu qofka uu yahay kasoo cadaado dilshaah inay nooshahay shakigeeda uu jiri doonaa kow hazar shadho lagu xusuusta ilaa ay uga soo laabato dilshaah inay nooshahay shakigeeda wuu jiri doonaa qodobka saddexaad wuxuu yahay ilaa aan ka ogaano qaabkii dilshaha ay ku dhimatay qaabkii loo doogay xabadda qaabkii ugu dhacday markii dhimanaysay dardaarankii ay samaysay markii la doogay muuqaalka waxyaabahaas oo dhan iyadoo nala tusin dilshaha inay noosha shakigeeda uu jiri doonaa daawadayaasha qiimaha badan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa falanqayntii iyo macluumaadkii ku saabsanaa dilshaha inay nooshahay kanaalka daa ku cusubtaa subscribe saro waa maasantiin waxay macluumaad kalen waa idinla wadaagi doonaa insha allah wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu